Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhowaada videogan waxaan ku sharixi doonaa laba concept oo muhiim ah oo u muhiima qofka baranaya software engineeringka ama programmingka inuu fahmo. Labadaas oo kale ah maxay kala yihiin static iyo dynamic typing. Static typing luqadaha static typed ah waxa weeyaan sida C, C++, Java iyo C Sharp. Luqadahaas markaad sameynayso variable-ka waa inaad sheegtaa type-ku iyo variable-ka. Marka the variable has a type. Yeah. Waa inaad markaad assign garaynayso ama aad ku assign garaynayso value isaguna wuxuu leeyahay type. Marka the variable-kan waa string, value-gan ku assign garaynayna waa string. Marka ma awoodno inaan haddaynu dhahno variable-kan waxaan ku assign garaynaynaa number integer ma yeelayo. Marka error ayaa soo baxaya sababtaasuna marka isu bedeli karin. Variables can't change type. Mar haddaad marka samayso variable-kii typekiisa ma bedeli kartid. Marka luqadaas waxaa la dhahaa static typed languages. Waxaa jira iyagana dynamic typed languages sida Python, JavaScript. Uma baahnid inaad markaad sameynayso variable-ka aad dhahdo variable-kan typekiisa waa string. Automatically markaad ku assign garayso value wuxuu ogaanayaa value ayuu ku ogaanayaa type-ka. Marka name automatically wuxuu noqonayaa string. Marka variables have types and values have types. So labadaba type ayay leeyihiin laakiinse type variable-ka wuu isbedeli karaa dynamically. Marka isagoo marka hore string ahaa ayad haddana waxaad ku assign garayn kartaa value integer ah. Wax dhibaatana kuma jirta marka faraqa u dhexeeya waa taas. Waxa muhiim in la fahmo marka static typed languageska maadaama aad compile garaynayso errorka khaladka ku jira wuxuu soo saaraya markiiba marka aad compile garaynayso during compilation. Laakiinse dynamic typedka hadduu khalad ku jiro wuxuu soo bixi doonaa markaad run garaynayso programkii. Taas ayaa muhiim inaan fahno. Waxaan markaa isbarbar dhigaynaa laba luuqadood sida C Sharp iyo Python si aynu u aragno example-adan hadda soo sharaxay. Okay, luuqadani waa C Sharp. Waxaad arkaysaan inaan halkan sameeyey string name is equal to Ahmed. Yeah? Marka haddaan isdhaho name waxaad ka dhigtaa number 21 oo waxaad ku assign garaysaa number ama integer. Waxaad arkaysaan waxaa soo baxay haddaan dhaho build wuxuu sameynaya compilationka ayuu sameynaya. Waxaa inoo soo baxaya marka error waxaad arkataan failed. Haddaan errorka eegnana wuxuu inoo sheegaya cannot implicitly convert type integer to string. So kuma ogolaanayo. Luqadda C Sharpka iyo luqadaha kale static typedka ah mar haddaad samayso typekii variable-kii ma bedeli kartid typekiisa. Okay, haddaynu barbar dhigno marka Python waxaad arkaysaan Python waxaan sameeyey variable. Uma baahni inaan dhaho variable-kani typekiisu waa string. Automatically maadaama aan halkan code gelinay wuxuu ogaanaya inuu yahay string saan hore usoo sharaxnay. Marka waan print garayn karnaa haddana waxaan bedeli karnaa value-gii. Value markaan bedelno variable-ki markaa wuxuu noqonayaa integer automatically waanaan printer garayn karnaa. Haddaan run gareeyo markaa wax dhibaato ah ma jirto. Waxaan rajeynaya inaan fahanay waxay kala yihiin static iyo dynamic typing. Haddaynu ku noqono PowerPoint-gii. Okay, su-aasha ugu weyn waxa weeyaan marka is Python statically or dynamically typed language. Python labadaba uu yahay waa strongly typed language. Taas micnaheedu waxa weeyaan variable walba wuxuu leeyahay type waana dynamically typed language. Labadan concept haddaynu sharaxno strongly typing micnaheedu waxa weeyaan variables do have a type. Marka variable walba type ayuu leeyahay. Type-kan waa muhiim hadhowto markaad sameynayso operationka. Waan baran doonaa sida loo sameeyo variable operations. Waana dynamically typed. Dynamic typing micnaheedu waxa weeyaan marka variable-ka typekiisa wuxuu programku go'aaminayaa marka la execute gareeyo ama during runtime marka la run gareeyo ayuu marka typekii ogaanaya. Sababtaasuu markaa u bedeli karaa typeka isagoo marka hore string ahaa ayuu haddana wuxuu u bedeli karaa integer. Waxaan rajeynayaa si fiican u fahamteen concept-yadan insha Allah. Waxaan is arki doonaa videoda dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.